dadkii qumana quraysh ansar nalal qimeed waxay qunyar ku helan waa quraanka aqoonadooda waa quraanka qof qoys qabiil qaran cidii qadataa qima yeelatee waa quraanku qasri taaj qiimayn iyo sharaf qofkii ubadkiisa bara quraanka qaadirka u yabo qaadirka u yabo hay qaadirka u yabo qaadirka u yabo hay ودكي روح دي قادر نسيي روحي كقلاق وممودا وقرانك قف قيس قاقي ميلتي وقرح قرانكو قيامه كالكود دعي قومك وذا قوسطا قرولي بقف كذي كل كي قرع اللي استكتو شفيع عديسة ربو نسي قادر باتعيه شفيع عديسة ربو نسي قادر باتعيه ودكي روح لي قادر نسيي روحي كقلاقو مدن مدحوينه رمضان كريم waxaa runtii noo sharaf ah wasaarad ahaan maanta ardayda aad arkayso quruxda badan waxay ka kala yimaadeen guud ahaan gobolada waxaanay u tartamayeen way ka qayb galayeen tartankii quraanka kariimka ahaa ee loogu magac daray tartanka quraanka kariimka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland gobol kastaba 3 arday baa u tartamaysay tartan adag buu ahaa runtii sanad ka dambeysay runtii uu sii adkaadaa sanadkan waxa weeye arrimo gaar ah oo waxyaalo la gaar ah baa jira aan ku sheegi doono haddii alla ka dhigo shalay ayuu kusoo gabagaboway magaalada Hargeysa caasimadda waxaa runtii ardayda intii 11 arday ka mid ana wasaaraddan ugu soo qabanay xaflad ugu soo qabanay maantayto afarta ugu sareysa kaalinta koowaad galay adiga halkan ugu deeqay runtii gaarigan qaaliga ah waa sanadkii labaad aynu gaari qiimihiisu runtii sareeyo aynu ku abaal marinayno sanadadii hore runtii gaari noo haabay ahaan jirtay madaxweynuhu waqtigu uu kooban yahay waxaan rabaa inaan mawduuca si u guda galo afarta arday ugu sareeya baan rabaa inaan ka koowaad waxaan ka soo bilaabayaa ka ugu hooseeyaan ka soo bilaabayaa si maxaa la yiraahdaayay dareenkiina noo siisaan waxaan u yeerayaa Saalax Maxamuud Ibrahim halkan madaxweynuhu wuxuu ku helayaa kitaab quraan ah shahaado mobile smartphone ah iyo computer casri ah iyo $500 waa arday kaalinta afaraad galay weeye waxaan noo sharaf inaa guddoonsiiso waxaan gobolka Maroodi Jeex ardayga saddexaad محمد إسماعيل علي شهاده موبايل سمارت فون كمبيوتر إيوه $1,000 هو تقدر أرضي كان تلوات قلي جودان مسابقات أوجل نوير دونا صالح عبد الرحمن عمر موبايل سمارت فون إيوه كمبيوتر يلعق لبو $1,000 أو كسر على جولكم رودي شح ardayga kaalinta koowaad galay ee gaarigan ku guuleystay ardaygaasi intaanu soo dhawaanin arin iyo qisal la yaab leh runtii ku sugan marka hore waa in indhala marka koowaad isagoo laba jir baa indhihii laga saaray intuu kansar ku dhacay baa markii dambe dhakhtar Sacuudiga loola cararay ilaahay amarkii wuu badbaaday indhihii mooyaane kansarkii meel kale uu gudbiyay runtii ma jirin alxamdulillah rabbil caalamiin wa xaafid quraan maalintii dhaweyd markii uu akhriyay quraanka waxaanu islahayn waa kan shaqal baaniye waanu duceynay ilaahay kaalintood uu galaa tolo maxaanu yeelnaa baanu islahayn waxa la yaalo dadkii dibadda joogay waxaanu baahiyeynay live coverage ama baahin toos ah dad baa runtii wasaaradda la soo xiriiriyay waxay lahayn haddii aanu kaalin gelin ninkaas annaga aanu wax soo siino yani say ula qeyraysnaayeen marka ilaahay ma haddii kaalinta koowaad buu galay waxaanu ka socdaa gobolka Sanaag aan u yeero Cabdiraxmaan Saalax Jaamac alxamdulillahi rabbil caalamiin sala allahu wasallam calaa nabiyina Muhammad wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin ilaahay baa mahadle maanta waxaa noo farxad ah haddaan nahay wasaaradda diinta iyo waqaafta
in aanu halkan waxa weeyaan aanu keenno ardaydii tartanka qur-aanka kariimka ah ee madaxweynaha ku guulaysatay ama kaalmaha hore timi oo aanu maanta halkan madaxweynuhu ku guddoonsiiyey 4 arday ee kaalmaha koowaad isu galay. waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka iyo dhammaan martida sida wanaagsan ee loo maamuusay qur-aankii koryeelkiisii madaxweynuhu ahmiyad ugu bixiyey. madaxweyne waad ku mahadsan tahay. ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala qur-aanka maadaama ilaahay ku magacaabay inuu yahay qur-aan mubaarak, inuu yahay mid baraka leh, barakadii qur-aanka in ilaahay geyigeenna ilaahay ku camimo, nicmada ilaahayna siiyeyna ilaahay inoo taam yeelo. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة بركة يا خير كبدن حفظ القرآن كأرضي كتر تنتي أنكم مع موسى إنه إلهي ومهده إلهي نوس وتجريي حرورتيني وكتر تبي صدق كشيس نجيك إلهي وحكم له ويلك يرى لي سواء عرور نوع آية إنه كسر كراعي haddana ilaahay awooddaas siiyey inuu ka koobaad noqdo tartankii dalka oo dhan. awooddaha ilahay bay ka mid tahay faactabiruu yaa ulil albaab waa ku cibro qaata. ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu dal iyo dadba inoo barakeeyo. ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa madar khayr qaba uu da'ayaa mid aan duufaan iyo dabayl lahayn oonana qaadin. ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in awlaadda iyo ubadka iyo oryaha iyo adduunka inoo barakeeyo. ilaahay waxaanu ku jira dalka nabad wixii khilaafa iyo khalkhalna ilaahay naga saaro. nabad caam aynu ilaahay ka rajaynaynaa, aynu ka ducaysanaynaa dhammaanteen.